قد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح. السلام عليكم. maanta oo ay taariikhda islaamku ay tahay soddonkii Jamaadulthani 1446 waafaqsan kuna beegan 11 December 2024 ayaa mu'asasatu tawciya al-islaamiya iyo Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun waxay dhalinyarada ku baraarujiyeen oo ay ku wacdinayeen mawduuc ku saabsan bilaha sanadka iyo macluumaadka ay sida ay yihiin. maxaynu ka fahamsanay ama dhalinyaradu maxay ka garanayaan January, February, March, April? marka mu'asasada ayaa soo diyaarisay sidaad ka arkaysaan fiidiyoodaasi iyo shan ayaanu dhalinyarada ku baraarujinay dadka ka soo wareegay 19 sano ayaa ka soo wareegay. marka waxaynu arkaynaa in ay mu'asasadu markasta garab taagnayd dhalinyarada iyo in la dhiirigeliyo ilaa maantana waanu garab taaganay waanu ka shaqaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. haddaba waxaanu leenahay dhalinyarada aynu ka faa'iidaysana sheekha iyo kelmadaha qiimaha badan ee mu'asasada iyo sheekhu idiin soo diyaariyeen 2015 insha allah waxaad la socon doontaan tawciya studio. waxaad kala socon doontaan mawaadiicda iyo mawaadiic kale oo fara badan oo qiimo badan insha allah tacaala. موضوعنا مدرس كان ولا له تلمامين كهضاء كصاب سيسن celebrations أما ندبلدك أما احتفال الله سمايه وقت يدنا إنه هذا الشغل يبغى يربى حين كريسماس نيو يير وقت كريسماس كاوي قانين ولا باتني يشنت ديسمبر يا نيو يير كود جانو مسألة إسكافضت وقف كسطاع عقل لو قرن كرو waxaynu isweydiin karnaa su'aal qura oo maxaynu la dabaaldegay waa maxay waxaan loo dabaaldegay laakiin kowda January maxay macna sameynaysaa astronomically macna ma leh agriculture beer ahaanna ma aha buu leeyahay waqti roob doo macna ma sameeyo waa jiilaal ku da waqtiyadu bilaabmay kowda January ee dabaaldega la sameynayo mana waxa ku fiicnaan lahayd in marka hore kalendarka waxoogaa idinka idhaahdo January iyo February dan iyo sanadkan xaga ka yimaadeen ama kalendarka waxa loo yaqaan dunidu kalendarka kala nooca ayay tirsataa kan aynu imika hayno asalkiisu waa kii Roman calendarka ahaa kan Gregorian calendarkii Roman calendarkii buu ka yimid. Roman calendarku asalkiisa wuxuu bilaabmi jiray guga wuxuu bilaabmi jiray March 10 bilood oo quraaba yaqaanay waxay yaqaanay bil la yiraahdo Martius, Aprilis, May, Junius, Quintilis, Textiles iyo afarta dambe oo sidooda loo tiriyo September, October, November, December waa Latin language-kii hore. September waa 7, October waa 8, November waa 9, December waa 10. lixda bilood hore magacyay lahaayeen afarta bilood dambana tirada caadiga bisha 7, 8, 9 iyo 10 inkastoo imka inay 8 iyo 9 noo hayna dib loo raray haddana waxa iyaga u ahayd nooca kan jiilaalka markaa kumay darin kalendarkooda waqti baraf iyo mushkilada ka dhacdaba waxaan jiray waqooyiga Yurub taasi oo dhan saadaradeed jiilaalku magacna ma lahayn tiro go'aanna ma lahayn. ciise dhalashadiisana cidiba garan mayso. ciise dhalashadiisa waxa ka warrama waa quraanka iyo bible-ka laba ka mid ah. bible-ka labada ka mid ka warrama waa Matthew iyo Luke labada kale kama warramaan. Matthew iyo Luke-na way isku khilaafsan waqtiga ay sheegayaan waayo Matthew wuxuu sheegayaa waqtigu ciise noolaa inay ahayd waqtigii Herodos uu ka talin jiray Romanska. Herodosna waxa la yiraahdaa taariikh ahaan inuu dhintay 4 sano ka hor
taariikhdan aynu hadda tirinay 2000 maraysa 4 sano ka hor inuu geeriyooday 40 sanadoodna waxbuu xukumayay ka kale haddii taariikhdiisa la qabto waxay noqonaysaa 6 sanadood kadib idan bishuu dhashay daayee ciise sanadkuu dhashay baan cidi garanaynin bishuu dhashay ka kaalaya sanadkuu dhashay meel lagaga nabo ayaan isaga taariikhaan lahaynin qur-aankuna ma sheegin kitaabka masiixiyadu haysataana isna ma sheegin bilaha iyo magacyadoodaas tirada badan lana January-dan aynu sheegayna January afkooda yani macnay ku leedahay waa maxay waa two-headed god of doorway and gates bay yidhaahdaan ilaahay labada madaxa lahaa ee albaabada iyo wadooyinka ayay January la macnatay waa ilaahay caabudu jireen noocaasiya February waa macno nooca ku dhadhow waxaan oo dhan markaad eegto waa ilaahay magacyadood March waa ilaahay dagaalka April waa kelmad Latino to open yani waa bilow May marka la eego waa ilaahada roobka iyo maxaa la yiraahdaa guga ama koritaanka waxaan kaasiya June waa ilaahada wisdomka iyo marriage-ka bay yiraahdaan July waa Julian calendar-ka ninkii sameeyay magaciisa ku darsaday ninkii isweydaariyay February iyo January markii hore February soo horreysay January ku xigtay August bay isweydaariyay dabeetana bil buu magaceeda la baxay oo wuxuu yiri Julius Caesar bisha ku xigta July anna magacayga ha la igu daro bisha ku xigta Augustna waa boqorkaasi isweydaariyay afartan dambe aynu tirinaynaa de markii hore waa qaldayno waa bishii 7aad iyo 8aad iyo 9aad iyo 10aad imika laakiin ma aha waa maxay October markaynu September ka bilowno September waa bishii 7aad laakiin calendarkeena waa bishii 9aad October waa bishii 8aad laakiin calendarkeena waa bishii 10aad idan horta calendarkan la hayaa waa nooca kan maadaama calendarkan uu noocan yahay waxa isweydiinta leh waxa weeyaan maxaa loo dabaaldegayaa waxaan aynu u dabaaldegaynaa waa noocma kiniisadda markaynu eegno iyo waxa ay ka rumaysnayd calendarkaasi Julius Caesar uu sameeyay aragtida kiniisadda waxay ahayd inuu tahay waxa laala iyo waxaasi la sameeyay paganism ama shirki inay tahay 1 January 25 December wuxuu dhan waxay kiniisaddu waagi hore u arkaysay inay mas'ala shirkiya tahay oo aanay marnaba ku banaanayn diin ahaan waxa laaliya waxa la wadwado ee laga soo bilaabo Saint Claus ama Baba Noel waxa Francisco yiraahdaan oo ah odaygan gadhka cad leh ee maryaha cascas qaata ee baashin barafka la dul jiida dul ordaya ee sideedda maxaa la yiraahdaa Ghazal ay ka hayso ay rumaysan yihiin inuu ka soo daadego guriga halkan yara sare qiiqo ka baxo ka soo galaabay dhaadaan habeenkii 25 December tahay dabeetana kicadu gala midfaada halka raashinka lagu kulayliyo guriga midfaadiisu taga halkaas oo carruurta sidii leetal khadarka Soomaalidu ay sheegtay habeenkii guda oo kale yeena guda dabeetana halkaas wax dhiga oo ay carruurtu ka qaadataan hadii la oran lahaa dayax qabtaan waa ka daba boodaysan waxba ma ahaateen ومركي ضيح وقورين أنا نكذب قورينه لكن نبغى حليه هداي قد مسألة قلي قلان وكذب قليسان قد مسألة قلي محمد ويقرمون هنا ولي يعني مساع قلي قد كاد انتو لاقي حاقيمة ولي يعني حديثك وحاوت الماما يا وحيابها آن معناها بلاهين إن الله شقيمها كسمينين وح بني آدم لقى قاطعين عقلك السليم كي حتى أنو كينين اللي راعه إن تكون راعي دونته إذا كريسماس الداي جبولي يوم حال هذا كودة جانوري ورقمه أصليا شركية مشركين كيمي مركي دمبنا وكريستان قاطي فالحمد أصلا نسقوا وضله هذا النصيب دبقة شوى جحر ضبكيون كما قديسنا ووحنا نرش هذا معنا كل هين أستان قالدنا واحد أدنى إلهي رسول كسيو كوانا نراعي دونا اليهود والنصارى ما يهود يا كريستان با قال فمن بيرو يا كلا الراعسة وحديث كابي سعيد الخدري كابي هريرة نواكيت المامي كفارس والروم ميا بيكوي رادن فقال ومن الناس إلا أولئك وضد بوا أيام قواهم بالنبي قولي لبدا حديث بوا كطبق ما يعني كأنت راعة وايو روم نسكي ونبي الروم كانوا حديث كاكو شاقي iyo nasaaradu xadiidka hore ku sheegay labaduba maanta way isku sii raacsiisayeen intan dambe ah maxay 25 December kan Christmas ka iyo maalinta ka sii dambeysay January kowdeeda
waxaasoo dhan markaynu isku darro waxa ay sheegayaan in mamnuucu yahay qofka muslimkii inuu waxaasi ku daydo gaalada waxa ku dhee bannaan in lagaga daydaa waa waxa wax anfaca ee ah maalan aqoontan cilmiga ee bini aadamku kala dhaxlay aqoontan horta gaala ma laha yurubna ma laha ee waa dhaxalkii bini aadamku ilaa aadam uu soo kala dhaxlayay qolaba waxay ku soo dartaba ama ninba inuu soo raaciyaba waa wixii reer nabi aadam soo kala dhaxlayay laakiin iyana intooda in la dafira maaha in weyn bay ku dareen in weyn oo aad uga weyn inihii la hayay ayay ku dareen intay qoladan muslimkii huruday mushkiladda taagani markaa waxay tahay intii macnaha samaynaysay cid ku dayanayso le aan kaga dayan naarkii maysid intii macnaha samaynaysay oo ah aqoontaas iyo wixii loo baahnaa cid kaga dayanaysa iyo cid hadal haysaatoona ma jirto intii lagaa reebayna waa la wada daba socdaa oo dawladda shacabka dadku 1 January waa la soo fasaxaya Christmaska la soo hambalyeynaya ka baa la sameynaya inta diin la'aantaana waa lagaga dayanayaa intay diintu sheegtayna waxaad moodaa in la rabo in la baalmaro ama si aan lagaga dayan hadday tahay in Christian ama Yahuud ama Majuus ama gaal kale waxa laga qaadan karaa waa waxa wax anfaca